madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qasriga madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya ku qaabilay guddiga cunaqabateynta golaha ammaanka ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa u qaabilsan Soomaaliya ayaa kala hadlay dadaalka dowladda Soomaaliya ugu jirto dib u dhiska hanaanka dowladnimo iyo ahmiyadda xoojinta wada shaqaynta guddigan iyo dowladda federaalka. agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka. madaxweynuhu wuxuu ku bogaadiyay guddiga cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya fursadan ay ku yimaadeen Soomaaliya si xog dhaba ay uga helaan horumarada laga sameeyay iyo tallaabooyinka loo qaaday sidii loo xaqiijin lahaa in Soomaaliya ay muujinayso dib u soo kabasho. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sidoo kale xusuusiyay guddigan ahmiyadda ay leedahay Soomaaliya inay hesho taageero dhinac walba ah oo looga qayb qaadanayo dagaalka kooxahan argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish aan uga hortagayno. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sidoo kale adkeeyay iyadoo laga duulayo ahmiyadda istiraatiijiyadeed ee dalkan uu dhaco iyo kaalinta ay ku yeelan karto xasiloonida gobolka inay dowladda federaalka Soomaaliya muujisay inay kaalin mug ka qaadanayso sidii xasilooni iyo amni iyo wada qabsi loogu soo dabaali lahaa mandaqadan. sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya aysan marnaba aqbali doonin faragelin kasta oo lagu dhaawacayo midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay howl adag ka qabatay dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo hagaajinta hanaanka xakameynta hubka iyo kaydintiisa. waxaa kaloo madaxweynuhu uu adkeeyay in dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay ay ahaayeen hay'adaha dowladda kuwa nugul haddana dowladda federaalka Soomaaliya in 3 sano ugu dambeysay ay ka qabatay shaqo aad u ballaaran oo tirkoob lagu sameeyay ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha kale ee dowladda. sidoo kale in tirkoobkaas lagu xaqiijiyay diiwaangelinta iyo tirada rasmiga ah iyo xuduudda ciidamadeena tiradooda iyo tayadooda. sidoo kalena si dhaba dib loo daraaseeyay hanaanka kaydka hubka ee Soomaaliya oo runtii shaqo wax ku ool laga qabtay. dhankooda xubnaha guddiga cunaqabateynta hubka ee golaha ammaanka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya una hogaaminayay safiirka dowladda Belgiumka ayaa bogaadiyay guulaha Soomaaliya 3 sano ee la soo dhaafay ka gaartay arrimaha dib u dhiska hay'adaha dowladda oo ay ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida. waxay runtii bogaadiyeen horumarkii ay dowladda federaalka Soomaaliya ku tallaabsatay ee dhinacyada amniga gaar ahaan dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo dib u habeynta dhaqaalaha iyo hufnaanta oo kaalin mug ka qaadanaysa kobcinta iyo xoojinta hay'adaha dowladda. waxayna runtii ballan qaadeen in ay si dhow ula socon doonaan khibrada ay u soo wakiisheen inay kormeer ku sameeyaan Soomaaliya ayna xaqiijin doonaan dhexdhexaadnimada waxyaabaha iyo warbixinada ay ka gudbin doonaan Soomaaliya.